qisadeena maanta waa qiso aada u yaab badan. waxaa laga yaabaa inaa la yaabtid, waxaa laga yaabaa inaa isweydiisid qofkan waxaan sameeyey maxaa ku qasbay, ma fiyooba mise wuu waalnaa? su-aashaas jawaabteedane adigaa lagaa rabaa, ha iloobin aa kasoo jawaab su-aasha. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا ليال ميلو البأجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئية قصة عصب. ولا القصة دينا ما أنت وقصة عجيب غريب. حدانا كم مقل لهن قف أن هو دين تيسا أن كوكل صونني أخلاق ديسا ما نرميستين مرة إذن سوق بين. قصة دا وحي يكون على نينكي يمت wadamada muslimiinta mid ka mid ah. wuxuu yimid wadamada reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanku yimid. Okay, wuxuu u yimid marka waxbarasho. waxaa loo soo diray inuu wax barto. ninkii sanadka koowaad markuu joogay wax bartay, wuxuu bilaabay marka ciyaar suuqnimo. wax walbo uu sameeyey. maalin maalmaha ka mid ah asiga iyo 4 qofood kalo ayaa israaceen. gaariyay qaateen, khamri cabeen, daroogay cabeen. ayagoo dhaxda socdo ayuu gaariga la gadoomay. intii gaariga la saarneed dhan waa wada dhinteen. asiga keligiisa ka badbaaday. isbitaalka la geeyey, wuu soo caafimaaday. meeshuu kasii bilaabay haddana tii imid ka daran. asxaab kaluu samaystay, meeshuu ka bilaabay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu asxaabtiisa isugu yeeray. wuxuu yidhi nimayahu maqla, wax walba waa baroobeynay. khamraan baroobeynay, daroogan baroobeynay, zinaan, wax walbo xun waa baroobeynay. maxay idiin la tahay marka diinta da iska bedelno? diinta aan iska bedel, muslimiin aan soo maahan sida la dhahaa, aan iska bedelno. waxay dhaheen waaye aan kasoo fikirno. waa lasoo fikiray. waxay dhaheen kitaabada adyaanta dhan aan soo wada qaadno. diinta yahuudiga, diinta nasraaniga, buudika la wada keenay, waa la wada aqriyay. waxay dhaheen su-aal aan isweydiina marka, diimahan dhan aan aqrin kee ugu fiican? midaa soo booda wuxuu yidhi fiicnaan ma rabno annaga hadda, kee haddana anficayso? diinta muslimkay fureen. waxay dhaheen may ma rabno, salaad tuko, khamraha cabin, kana sameynin, ma rabno, naga laab. okay, maxaa kalo yahuud waa sanacbanha naga dhaaf. okay, waxay dhaheen marka diinta kirishtaanka aan qaadano. waayahay, waxaa la go-aansaday asigii asxaabtiisa kaloo 5 cusbeed inaa gaala la noqdo, nasaara la noqdo, kirishtaan la noqdo. waa soo baxeen, gurigay deganyihin, kiniisa ku agtaalay. kiniisadii u imaadeen. waxay dhaheen nimayo maqla, annaga wadankaasaan ka nimid, muslimiin aan nahay, laakiin waxaan go-aansanay diintiina iska bedelno oo aan noqono kirishtaan, aan noqono, diintiina aan qaadano. ninkii wuu farxay. awal maruu arkaayo wuxuu maqli jiray kirishtaan ka baxayo diinta oo muslimiin galaayo, laakiin weli muusan arkin, caks ma arkin. ninkii aada u farxay, aada u soo dhaweeyey. ballanuu oo qabtay. wuxuu yidhi maalintaas imaada. nimankii ballantii ku imaadeen. ninkii qisiiska ahaa wuu soo dhaweeyey, asxaabtiisu u gudbiyey. saliibkii crosskiyaa loo xiray. khalas sidii ku noqdeen marka kirishtaan ku noqdeen. wuxuu yidhi bisha kood markaan aadnay marka waxaan bilownay marka ayagiiba inaan fasahaadino. gabdhaa meesha imaanaya, nimanaa imaanaya, dhalinyartii iyo teenagerskii aan kaxaysanaynaa, gurigaan geynaynaa, khamri iyo daroogaan kasoo dharjinaynaa. markii dambe ninkii qisiiska ahaayo kiniisada dhan madaxu ahaa noo yeeray. wuxuu yidhi maqla, nimayahu diintiina maa ku noqotin, diintiina idiin fiicane, annaga waana dhibteen, diintiina ku noqda. waxaan dhahnay mabayd rabna bax. sidii marka aga soo baxeen, kiristaannimada aga soo baxeen. maxay galeen? diin ma haystaan. haddana sidiiyaa la fikiraya. waxay dhahen diin dhanba ma rabno, maxaan sameyneynaa? waxaan noqonaynaa marka cabadati shayaatiin, dadka shaytaanka caabudo ayaan noqonaynaa. dadaa jira oo shaytaanka caabudo. markaas magac weyn mayna, laakiin hadda waa la wada yaqaanaa. waxay go-aansadeen dadkaas inay ka mid noqdaan. ninkii asxaabtiisa waxay go-aansadeen marka inay ka mid noqdaan dadka cabadati shayaatiin. 1 sanay ku jireen. ninkii marka faqiir uu noqday, wax lacag usoo dira ma lahan. iskoolkii waa soo raacdeen, drop out uu noqday. wuxuu go-aansaday marka wadankiisa inuu ku noqdo. wadankiisu isaga noqday, faamilkiisu ku noqday. faamilkiisu u sheegay. wuxuu yidhi aniga maba ihi muslimba ma ihiba. waa wada fiireen. waxay dhaheen xayawaanaatee baxna dhaaf marka. wuxuu yidhi markasaa meesha uu joogay dhibaato la ii timid, anina nuuc kalaa noqday. waxaan go-aansaday marka inaan sixir soo barto. waa fiiriyey, telefisyoonkaan fiiriyey. waxaan maqlay nin wadan kale joogo oo dadka sixir baro, 6 bilood gudaheeda ku baro. waa baxay tigidaan goosti meeshii aan tagay 2 bilood markaan dhiganay wuxuu yiri waxaan soo noqday mutacallim aan soo sixirkaasi fiican soo bartay
sixirkii aan soo bartay, gurigii aan kusoo noqday, wadankii aan kusoo noqday. weli wuxuu yidhi habbi ma ihi. ninkii wuxuu yidhi markaan sixiroolo soo noqday oo weli farxad aan ku noolaan waayey, waxaan waa asxaabteedan waa nimayahow farxad maa ku nooshihiin maya, maxaan sameynaa ma naqaano, aan isdilno. waxaan go-aansanay marka kulligeena inaan isdilno. seen isu dilaynaa? caawo markaan afurno kadib waa soo bixaynaa, gaarigaan qaadinayna, isbiidaan kuweynayna, derbigaan ku dhufanayna sidii aan ku wada dhimano. hayaan wuxuu yidhi ballantaasaan wada galnay, ramadaanaa lagu jiray, gurigaan iska imaaday, cunto ma taalo, qof ila hadlaaya ma lahan. waxaan arkay marka aabahey iyo oday meel fadhiyaanoo sambuus iyo bur waxa cunaayo, ayagaan lasoo fariisay, aan guriga cunto lagama kariyo, ayagaan lasoo fariisay. marka waxaan bilaabay ayaga inaan cuntada la cuno. aabahey ilama hadlo, walaalihii ilama hadlaan, hooyadii ilama hadlo, sidii xayawaan camal iga aamuseen u dhah. meesha mid cuntada iska cunay, sambuuskii burkii cun. wuxuu yidhi aabahey khalaas wuu qabaystay, wuu labistay, salaadiisuu aaday. ninkii duqa meesha joogaa wuxuu yidhi soo bax, intee waa soo tukanaynaa. inaysan u fiiro war waalanta ordayga tagaan wuxuu yidhi may soo bax. war ani ma tukanayo, may waa tukanaysaa soo bax. ma tukanayo ma ku raacay, may waa i raacaysaa. war muslimba miye, adoo muslina soo bax tuko. sixiroolaan ah, sixiroolaan soo bax tuko. janaabaan qaba 40 janaaba, wax dhib mala soo bax. weese ma qabi, wax dhib mala soo bax. war aabahey buu idaayay faraha iga qaad, maya soo bax waa tukanaynaa. war odayahoy daa, maya kuma daynaya soo bax. war aabihii idhaayo farahu iga qaaday idaa, maya. war oday inaan kugu dambaaba ma rabee, maya soo bax waa tukanaynaayo. waxaa rabtid ahaw soo bax waa tukanay, maanta kuma daynaya ilaa ay raacdid maahayne. waayo yiri waa go-aansaday, waxaan dhahay soo iska raac. salaada sujuuda kood markii la galnay isaga soo bax. masaajidkii aan wada galnay, salaada markii la xirtay allahu akbar oon dhahay, waxaan sugaya marka ragcada koowaad inay dhamaato suurat al-faatiha xataa wallahi waa hilmaamay u dhahay. suuratu imaamku la daaliin aamin markuu yiri wuxuu bilaabay marka aayadaha ugu dambeeya suuratu al-mu'minuun inuu aqriyo. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نيكو حيروان حي نيكو عربي يقعناي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حاوم ليسين عيانا إذين أبورني إذين كدينين وحارة الإسكا سمينيسين محاوم ليسين إذين سوء علينين. نيكو حيروان حي أول مرة مقلوب بآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحوي حلمة جوحة قلبي يكيل أنا دو محمد بالله مركا إن انجريو إمامك وسي ودي آية ذكر فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنا دو سكران الله سيساق وحا وساقي وأنجرنيني قفكي إلهي وحو الشريك يالو شركي لي ماذو إلهي وحان إهين عابدو يا ترى محاله سمينا فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. حتى إلهي وحول شريك يشي حساب هذا ما لنت قيامه إله كل حساب تمايو إنه لا يفلح الكافرون. ذاتك كافرين الدنيا كما اللي بانيان آخرني نار قدام بينيسو آيات قدام بيسا أقول معان فيري وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. أضو حسنا صوصا ميسي هدا إلهي أتوبت كينتيد إلهي وقودا بدافع ونقول حريسنا نينكي وحوي وابعد كيسا واي هالمر صلاة الحديثان كوقيلي واصوح لي سوق قادم مساجد كقولي عليك يعني وحير كدب واسكن نقضي واقبيستي waxaan bilaabay marka diintii inaan barto. sheekhi qisada ka sheekeynaya wuxuu yiri marka ninkii waxa arkuu yiri marka sanooyin kadib aan arkuu dhahay ninkii oo maasha Allah ila quruxda ka muuqato, nuurka ka muuqdo, gardaystay, salaada tukad, nuurka wajigiisa ka soo baxaayo oo aadan fiirin karin. markaas uu igu yiri subhanallah maalintaas si ahay haddana si ahay. ujeedaan qisadan waa qisa xanuun badan laakiin faa'iido badan. faa'iidooyinkaas qaar ka mid ah idin sheega إذا كان أنت كلا سو شيء خير الله يدين سيه. فإذا ذكوبات هدا ربت فرحة سعادة happiness هدا أباهنته دين هذا وكو دين هذا الكها جوسها جعمن كأكو قبصه وحكستو كودعو دين هذا مدح كو صارناتو دين هذا سفي عن أبرو دين هذا مركب برتد إيه قلبي جا قشو قلبي جا وجلعة رحمة أيو إلهي كوسو دجنا
nuur ayaa wejiga kasoo baxayo. qofkii rabo marka inuu badbaado, adduun ku badbaado, aakharana ku badbaado, diintiisa islaamka gowsaha iyo gacmanka ha ku haysto. dhib kastoo ku gaaro diintaada waa raasimaalkaaga, saas u ogow. faa'iidada labaad, caruurta ha la baro diinta, ha la jeclaysiiyo. cunuga markaa qalbigiisa kasoo buuxisid caqiida, wax kastoo lagu shuba ma galaayo. fiiri markaa koob uu kuu buuxo, wax kastoo ku shubtid ma galaayo. soo majid banaanka lagu daadana leana wuu buuxaay. marka waxaa loo baahan yahay ilmaha intay yaryar yihiin qalbigooda in la buuxiyo, laga buuxiyo caqiidada islaamka, laga buuxiyo diinta islaamka iyo wanaagiisa, la jeclaysiiyo. waa waajib ku saaran waalid haddaad tihid, hooyo iyo aababo. rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. qof walba waa mas-uul, wuxuu mas-uul ka yahay dadka loo dhiibay, aakharane waa lagu weydiinahay. ogow. faa'iidada saddexaad, waxaan ka ogaanaynaa dhulka gaalo iyo dhibkiisa. annaga meeshan waa la wada yimid, caruurtiyaa la keenay, xaasaskiyaa la keenay, waa la soo socdaay. laakiin weli ma laga fikiray caruurtan maxaa u dambeyn doono, siday noqon doonaan. xaasaskan iyo dumarka meesha la keenayo halkay ku dambeyn doonaan, weli ma liisweydiiyey? haddaa isweydiisay jawaabtaada maxay kuu noqotay? haddaadan isweydiinin su-aashaas hadda isweydii. faa'iidada afaraad, iska ilaali dembiga. waxa lagugu khatimayo ma taqaanid. ninkan hadda dembiyuu galay, waa laga yaabay dembiga asigoo ku jiro inuu dhinto. rasuul sal alla alay wasalam wuxuu yihi qofka camalkuu ku dhintaa lagu soo saaraa. 4 inuu sheegaya uu soo duugay oo meesha kula dhinteen ayagoo khamraysan oo gaari saaran oo meel u socdaa, aakhara lasoo saara. maxay helayeen marka? ciqaabtooda maxay noqonay? suu-il khaatima. waa ilaahi subxaanahu watacaala ka magan galnay. ilaahay ka magan gal suu-il khaatima. dembigana iska ilaali, khayr allah ku siiya. faa'iidada shanaad, qof ibni aadan ha ka quusanin. ninkan odayga fiiri, khayr allah ha siiyo. waxaa laga yaaba xataa diinuu saas u aqoonin, laakiin wuxuu arkay cunugan inuu waddo qalad ku socdo. wuxuu ku qasbay isoo raac masaajidka, isoo raac. si kasto wuxuu yihi ma weyse qabo, weyse la-aantaada ku tuko. janaabaan qaba, janaaba la-aantaada ku tuko. sixiroolaan, sixiroolaan tuko. gaala ah, adigoo gaal e tuko. faraha wuu diiday inuu ka qaado, wuu soo kaxeeyey masaajidkuu keenay. ninkaasaa sabab u ahaa ninkaas ayaa sabab u ahaa inuu ninkan kusoo noqdo diintiisa iyo wadada saxda uu kusoo noqdo. sidaa darteed haddaa aragtid qof wax ka hadlaysan yahay, ha isdhihin waa gaal ama waddo qalad uu kusoo, faraha ka qaadin. gaarsii, maa calayka ila albalaaq. adiga waxaa lagaa rabaa keliya masajka inaad gudbisid, dadka gaarsiisid. rasuul sal slam siduu yihi oo kale, balliguu canii walow aaya. waa waajib ku saaran qofka kale inaad risaalada ama masajka u gudbisid. faa'iidada 6aad, tan 7aad 8aad 9aad 10aad adigaa lagaa rabaa. soo qor, khayr allah ku siiye. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waanu jimcada soo socota iyo qiso cusub ilaa jimcada soo socota laga gaaray. maxaa lagaa rabaa adigane? inaad dhegaysatid, ka faa'iidaysatid, walaalaha kale usii gudbisid. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.